السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa Macalin Maxamuud cashkan waxaynu ku baran doonaa 10 kaan erey meesha noo saaran ereyga koowaad flint waa dhagax okay waliba dhagax adag ayaa la yiraahdaa flint okay for example dhagaxunta dhagax waxaa jira iska jilicsan that's very soft qaarkoodna they are very hard rocks dhagax aad u adag dhagaxaas ayaa la yiraahdaa flint ereyga labaad flip waa gadin yes rogrogid ama gadin waxayna sida u gadisid sale flip the coin shilinka gadi flip the page bog gadi she flip the pancake anjarada ayay yani birta ku gadgadinaysa soo maaragtid marka flip waa gadin okay ereyga afraad folklore okay flash ka boode flash waxa la yiraahdaa yani musqusha inaad biyo badan ku siidaysid hal mar ay daadato flash the toilet musqusha biyo badan ku sii daawa yani biyo badan baad hal mar meel ku shubaysaa si aad u nadiifisid taas ayaa la yiraahdaa flash ereyga afraad folklore waxa la yiraahdaa sheeko xariiro yes folklore sheekooyinka hore yani dhaqamada iyo traditions waxyaalahaas ka hadlaya ayaa la yiraahdaa folklore yes adigu sheeko xariirada sheekooyinka dhaqanka waxyaalahaas ka hadlaya okay ereyga shanaad fond waa waxa jeceshahay haddaan ku dhaho for example she is fond of cats iyadu waxay jeceshahay bisada she loves cat amal jacayl yes ereyga lixaad foster waa korin يعني to help something grow waxayna korisid ama aad horumarisid sala amal teachers foster learning macallimiinta yani qofka ay ka dhigaan qof wax barto way koriyaan okay this program fosters talent programkan waxa loogu talagalay inuu kobciyo yani encourage gareeyo support gareeyo yani talent okay ereyga toddobaad waxa loo aqriyaa furnace waxa la yiraahdaa yani I don't know if you know forno yes fornada meesha roodiga lagu dubi jiray roodiga markii la geliyo kor bay ka bixinaysaa alaabtaas waxa la yiraahdaa furnace forna la yiraahdaa Soomaali istaalada xitaa way leeyihiin furnace yani alaabaha iyo gloves waxyaalahaas camal lagu gubaa yes taas ayaa la yiraahdaa furnace so the furnace is very hot inta badan fornada aad ay u kulul okay ereyga sideedaad genome waa erey science ah yani hidde-sida la yiraahdaa waa yani DNA gaada meesha walxaha DNA ga sida okay genetic materials kuwaas ayaa la yiraahdaa hidde-side and mostly by the it's a very hard subject when it comes to science yahanadana waqti aad u badan bay ku bixiyaan marka genome waxaan leenahay hidde-side yes okay ereyga sagaalaad genre waxa waayo tusaale music hadii laga hadlaayo ama filmaanta waxay kala leeyihiin noocyo film waa shactiro film waa action film fair ah film waa horror oo cabsi ah يعني فيلم markay noocaas kala duwan yihiin ama category of movies ama category of music ayaa la yiraahdaa genre ereyga ugu dambeeyo gymnastics waa ciyaarta yani jimicsiga qofka boodboodayo meel qabsana gymnasium waxa la yiraahdaa hoolka lagu soo bandhigo ciyaarahaas guriga ama hoolka ciyaaraha gymnastics iyo yani ciyaar walba lagu soo bandhigo ayaa la yiraahdaa gymnasium yes ereygan maadaama uu dheer yahay inta badan waxa loo soo gaabiyaa gym hadda taqaanid ereygan la isku gaabi waa meel loo tago in lagu ciyaaro okay it's for sports waxa kale oo loo tagaa jimicsiga qofka inuu jirkiisa dhiso marka ereygaas gymnasium maadaama uu dheer yahay waxa loo soo gaabiyay gym yes for example I normally go to gym 2-3 times a week sorry marka gymnasium waxa la yiraahdaa hoolka weyn ciyaaraha lagu soo bandhigo ama meel yani guri loogu talagalay dadka inay yimaadaan ay jimicsi ku sameeyaan waxaana loo soo gaabay inta badan gym yes ashka intaas ayuu ka yahay keep learning and have a good day bye bye